السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. رب يسر ولا تعسر وأعنا يا كريم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف الدارين آمين. waxaan u tahniyadeynayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel walba adduunka ay kala joogaan. waxaan ugu tahniyadeynayaa dhalashadii nabigeena calayhi salaatu wassalaam. waxaan ku jirnaa bishii barakeysaneed oo ahaa mawlidkii nabigeena calayhi salaatu wassalaam. aan ognahay nabigeena calayhi salaatu wassalaam inuu dhashay bishan Rabiicul Awwal 12keed, yani sanadkii lagu magacaabi jiray sanadkii fiilka ama sanadkii maroodiga, markii soo weerareen Maka 50 habeen kadib. marka maanta maalmahan waxaan ku jirnaa maalmihii loo ixtifaalayay mawlidkii sayidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. arinta ku saabsan mawlidka nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaan ka xumahay sanad walba inay noqoto waxyaabo laga doodo, isku bedesho meeshii laga sheekeyn lahaa maxabadiisii iyo salligiisii ay noqoto dood cilmiyeed ama dood aan cilmi xataa mararka qaarkood aysan ku dhisnayn. sidaa daraadeed marka maanta waxaan jeclaystay marka ugu horeysa inaan ka hadlo mawlidka nabiga calayhi salaatu wassalaam. diinteena islaamka ma ogoshahay? maxaase daliil u ah? marka dhowr daliil ayaan soo qaadan doonaa insha allahu tacaala oo cadaynaysa inay bannaan tahay nabigeena calayhi salaam dhalashadiisa in loo ixtifaalo. daliilka ugu horeeya ah xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wassalaam kuwa cadaynaya isaga laftirkiisa khayru khalqillah sallallahu alayhi wasallam inuu u dabaaldegay dhalashadiisa. nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu soomi jiray maalinta isniinta. asxaabta markii ay weydiiyeen ay ku yiraahdeen maalinta isniinta maxaa u soomaysaa, wuxuu yiri waa maalintii aan dhashay, waana maalintii waxyiga igu soo degay. marka waxyaabaha uu nabigeena u soomay maalinta isniinta waxay ahayd dhalashadiisii maadaama uu dhashay maalinta isniinta. taa waa mid. daliisha labaad ee cadaynaysa nabigeena calayhi salaam in loo ixtifaali karo wixii sanad guuraha inay noqon karto, nabigeena markuu yimid Madiina soo soo wariyay Imaam Muslim saxiixiisa, wuxuu arkay yahuudda oo soomaysay maalinta 10aad ee bisha Muharram. markuu weydiiyeen waxay yiraahdeen waxaan u soonnaa waa maalintuu nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam ilaahay badbaadiyay oo ka badbaadiyay Fircawn. marka ku mahadcelinayna ilaahay oo noo badbaadiyay nabi Muuse ayaan u soomaynaa. nabigeena marka muusan oran wax bidcaad samayseen ama waa qaldantihiin, laakiin wuxuu yiri annagaaba xaq idinkaaga leh nabi Muuse. nabiga isagaaba soomay, asxaabtana wuxuu amray inay soomaan. taa marka waxay cadaysay sanad guuro ay ahayd maalintii ku beegan tahay maalinta 10aad ee Muharram ay ku beegnayd markuu nabi Muuse calayhi salaam ilaahay badbaadiyay. marka farxadaas ayuu nabigeena calayhi salaatu wassalaam u soomay. xadiiska kale saddexaad waa xadiiskii soo wariyay Imaam Muslim laga soo wariyay Abu Sa'id al-Khudri. wuxuu yiri Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wuxuu ugu yiri nabiga calayhi salaam wuxuu soo galay mar majlis ay asxaabta ay wada fadhiyaan, qaar asxaabta kamid ah. markaasuu ku yiri maxaa idin fariisiyay halkan? markaasay yiraahdeen naxmadu yani ilaahan u mahad celinaynaa, waxaan ugu mahad celinaynaa inuu ma aragtay na hanuuniyay, diinta nagu hanuuniyay oona nagu kaa nimcay, wamanna calayna bika, adiga ilaahayna kaa siiyey. yani nimcooyinka ilaahayna siiyaan ugu mahad celinayna waxa adigoo ilaahayna kaa siiyey. taas ayaan u fadhinaa. nabiga calayhi salaam wuxuu yiri allahi ma ajlasukum illa dak, taas mooyaan wax kalmaad u fariisteen. markaasay dhaarteen asxaabtii may arrintaas kaliya aan u fadhinaa. marka nabiga wuxuu ku yiri idinkuguma dhaarinin kalsooni daro aan idinkugu qabo, laakiin waxaa idinkugu dhaaray inaan idin sheego ilaahayna inuu malaa'igtiisa idinkugu faanayo oo leeyahay bal fiiriya, yani ummaddeeda mu'miniinta inay wada fariisteen ay igu mahad celinayaan nicmada islaamka, iguna mahad celinayaan inaan u soo diray nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam. taas waa tii saddex. tan afaraad xadiiska uu soo wariyay Imaam al-Bukhari iyo Imaam Abu Cabdirazaaq iyo sidoo kale Imaam Xaafid ibn Xajar al-Casqalaani Fathul Baari ku soo qaatay, oo ah nabigeena adeerkiisa Cabbaas ibn Abdul Muttalib ayaa habeen wuxuu ku riyooday walaalkiis oo ahaa Abu Lahab. Abu Lahab iyo Cabbaas waxay labadooduna adeer ay u ahaayeen nabiga calayhi salaatu wassalaam. Abu Lahab markuu geeriyooday ayuu ku riyooday. Abu Lahabna waan ognahay quraanka in lagu sheegay ahlu naar inuu yahay oo suurad dhan ay ku soo degtay. markaasuu yiri xaaladaada ka waran. wuxuu yiri khayr kuma nooli,
oo cadaabtii oo maaragtay nabi maxamed adduunka iigu sheegay ayaan ku dhex jiraa inta aan ka ahaynuu yidhi maalinta isniinta. maalin walboo isniin ah waa lay nafisiyaa, waan ka nastaa cadaabta. maxaa dhacay marka? waxaa dhacday maalinta isniinta waa maalintuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhashay. marka wuxuu yidhi markuu nabiga dhashay waxa qofka ugu horeeyey ee la kulmay ee nuujisay waxay ahayd adoomad oo iska lahaa abulahab oo la oran jiray Thuwayba. Thuwayba waa qofta ugu horeysa nabigana nuujisay. waa caanihii ugu horeeyay caloosha nabigana ku dhacay waxaa nuujisay qof adoomad ah ee la leeyahay oo abulahab iska lahaa. iyadoo faraxsan ay abulahab u timid markaas ugu bishaaraystay walaalkaaga wiil ayaa u dhashay, maxamed ayaa dhashay. farxad aan ku farxay dhalashadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadiina waan xoreeyey, adoontii waan xoreeyey. marka maadaama halkaas maalin uu ku farxay dhalashadii nabigan calayhi salaatu wasalaam maalintaas waa loo fududeeyaa cadaabta. saa daraaddeed marka imaam shamsudiin maxamed ibn naasir addiin addimashqi raximahullah wuxuu yidhi idaa kaana haada kaafiran jaa damuhu, kaas hadduu ahaa nin gaal ah eena lagu ceedeeyey noogula sheegay bitabbat yadaahu fi ljaxiimi mukhallada, suurad tabbat yadaahu noogula sheegay inuu naarta jaxiim ku waarayo. ataa annahu fi yowmi lithnayni daa'iman, waxaana loo soo sheegay maalin walboo isniin ah yukhafafu canhu lisuruuri biaxmada, in cadaabta loo fududeeyo maadaama uu ku farxay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa. fama dannu bilcabdi aladii kaana cumrahu, ka waran marka addoonkii cumrigiisa noloshiisa dhan kaana biaxmada masruuran wamaata muwaxida, ku faraxsanaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, qofka weligiis ku faraxsanaa nabi maxamed eena geeriyooday asagoo ilaahay rumaysan. marka taas tii afaraad ay ku cadaynaysay in lagu farxo farxaddaas in qofka ajir uu ka helayo maalintaasoo nabigan calayhi salaatu wasalaam dhashay. maaragtay oo maaragtay haddii laisku yimaado ay tahay ciid muslimiinta u tahay. soo kale waxyaabaha ku cadaynayo nabigan calayhi salaam dhalashadiisa inay bannaan tahay in loo xafladeeyo waxaa ka mid ah aayaddii ahayd qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu, waxaad ku tiraahdaa fadligii ilaahay iyo naxariistiisa sidaa daraaddeed ku farxa. naxariista ilaahayna waxaa ka mid ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. marka maalintuu nabigan calayhi salaam dhashay in loo farxo waa naxariis noo dhalatay oo lagu farxo waxay ka mid tahay yacni waxyaabaha qur-aankeena kariimka u ayiday. tan lixaad nabigan calayhi salaam wuxuu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowm alqiyaama, qofkii islaamka sunneeyo wado wanaagsan, sunnada wanaagsan kii wado u sameeyo ajirkiis ayuu helay, wuxuuna helay kii ku camal falay ajirkiisa ilaa yowm alqiyaama laga gaaro. marka nabigeena dhalashadiisa in lasugu yimaado ee nabiga lagu ammaano ee laga sheekeeyo suu ku dhashay taariikhdiisa laga sheekeeyo salligiisana la akhriyo waa sunno wanaagsan. kii marka wado u sameeyey ee ka dhigay sanadkii hal habeen lasugu yimaado ama intay doontaba ha noqoto waqtigay doontaba ha noqoto yacni sunna xasana ayuu qofkaa markaa sameeyey, wado fiican ayuu furay. sidoo kale daliisha toddobaad ee cadaynayso in nabigeena calayhi salaatu wasalaam loo ixtifaalo waxaa ka mid ah aayaddii dhahaysay yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun. dad yahow mu'miniinta ah ilaahay u rukuuca, ilaahay u sujuuda, rabbigiinana caabuda, intaas maya wafcaluu lkhayra, sameeya alkhayra, khayrka oo dhan. alif ilaam lilcumuum waay, lilistiqraaq washumuul, yani waxay ku cad wax walboo khayr ah sameeya. marka in nabigeena calayhi salaam dhalashadiis lasugu yimaado loo xafladeeyo lagu farxo ma khayr baa mise waa shar? waa khayr. saa daraaddeed marka in loo farxo oo maaragtay laisku tahniyadeeyo waa wax aada iyo aada u fiican. daliisha sideedaad ee cadaynaysa inay bannaan tahay nabigeena calayhi salaam in ixtifaal loo sameeyo waa xadiiskii uu soo wariyay imaam axmed ibn xambal nabigeena calayhi salaam inuu yiri ما رأه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. مؤمنين توحي وأركان وحو وناكسن إنو يهي إلى حقيسو كوناكسن يهي. وحي مؤمنين تو أركان وحي وحن إنو يهي إلى حقيسو كحن يهي. مركي أي نقطي إن احتفال الله سمايو النبي قال لشديس عليه الصلاة والسلام. مؤمنين تي مركا جوكتي علماء دي جمهور كوسي أبدينيهين وحي وأركان وحو وناكسن إني تهي. wax wanaagsan haddii muuminiintu arkaan ilaa xaggiisa uu ka wanaagsan yahay. culimmadii waaweyneed oo dhan caanka ahaa ee la yaqiinay badankooda ama jamhuurkooda way banaan. culimmada xaaraantimaysa waa culimo fara lagu tirin karo,
laakiin inta ma aragtay banaysay lama tirin karo. laakiin qaar ka mid oo caan ah ayaan magacyadooda soo qaaday. waxaa ka mid dadka baneeyay aimada banaysay amiiru lmuminiina fi lxadiis imaam xaafid ibn xajar alcasqalaani oo la wada yaqaano ee qoray kitaabkii fatxu lbaari. sidoo kale imaam taajuddiin asubki, imaam ashawkani, imaam abu shama almaqdisi, imaam asakhaawi, imaam ibn alxajar alhaythami, imaam jalaal الدين السيوطي, imaam alqasطalaani, imaam abulfaraj ibn اljawzi. aimadaas iyo aimo kale way baneeyeen. aimada banaysay soo kale caanka waxaa ka mid ah ee ku abtirsada madrasadii imaam ibnu taymiya, madrasat salafiya. waxaa ka mid imaam ibnu kathiir oo la yaqaano inuu yahay imaam salafi ah, ardada ibnu taymiya ka mid ah. kitaab ayuu alifay, waxaa sheegay xaafid ibn xajar alcasqalaani kitaabkiisa adurar alkaamina. ibnu kathiir wuxuu alifay kitaab oo lagu magacaabo mawlid rasuuli sala allahu calayhi wasalam, oo u sameeyey mawliidka in ma aragtay ku ammaanaya nabigeena. marka wuxuu ku leeyahay ibnu xajar meelo badan adduunka uu ka gaaray waagaas kitaabkaas, oo wuxuu noqday kitaab la ammaano. ardada ibnu taymiya waxaa ka mid ahaa xaafid dahabi, ninka qore siir aclaam nubala. xaafid dahabi markuu ka sheekeynayay melik almudafar, waa ninkii boqorkii hore ahaa ee qarnigii afaraad jiray ee baneeyey mawliidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam in loo ixtifaalo ma aragtay aada u weynayay. marka wuxuu leeyahay mudafar kaana mudafar الdiin fi الsunnati cala almawlid, yacni mudafar wuxuu ku taagnaa sunno inuu baneeyey mawlidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam. kuma eedayna ma dhihin bidcu ku dhacay, laakiin wuxuu yidhi wuxuu ahaa nin sunno ku taagan ee baneeyey mawlidka. waxaa ka helaysa siir aclaam nubala mujaladka 22aad. waxaa kaloo marka qaar badan maanta laga yaabo daawadayaasheena sharafta leh inay mufaaja'a ama kadis ku noqoto haddii aan iraahdo dadka ammaanay mawliidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam in loo ixtifaalo kuna sheegay ajir in laga helayo. waxaa ka mid ahaa shaykhu lislaam axmed ibnu taymiya raximahullah. marar badanna waa sheegay ibnu taymiya aima dadka culamaa salafiyiinta ku abtirsado agtooda, yani wuxuu ka yahay hadalkii sida xadiis oo kale, yani waa sheekh ay ku kalsoon yihiin. ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaa siraat almustaqiim yani wuxuu ku leeyahay qad yuthaabu bacdu annaas calaa ficli lmawlid, dadka qaarkood ajir waxay ka helayaan ficilka ay sameynayaan oo ah mawlidka nabigeena caleyhi salaam. wakadalika maa yuxdithuhu annaas, sidaas waxaa kaloo kamid a waxyaaba dadka markaas ay sameynayaan imaa mudaahatan linasaara, ama ha noqoto isku ekeysiin nasaarada fii miilaadi ciisa, iyagoo ugu talagalay maadaama nasaaro ay sameeyaan christmaska oo nabi ciise u xafladeeyaan, muslimiintan ay taas inay ka tahay. wa imaa maxabatan lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam wa tacdiiman lahu, ama inay ka tahay jacaylkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay weyneynayaan. marka wuxuu le wallahu ilaahayna qad yusiibuhum calaa haadihi almaxaba, ilahay ajir wuxuu ka siinaa marka kuwa u sameynayay jaceylka nabiga caleyhi salaatu wasalaam. marka annaga haddaan nahay dad muslimiina miyaan u sameynaa ku dayasha nasaara, mise waxaan u sameynaa jaceylka nabiga? haddii nabiga jaceyl aan u qabno daraadis ay tahay, shaykhu lislaam axmed ibnu taymiya wuxuu yihi ajir ay ka helayaan. walijtihaad laa cala albidac, iyo ijtihaadkaas ay sameeyeen ajriga maaha bidcooyin markaas waxay ku dhaceen. yani markii mawlidka la sameynayo haddii bidcooyin meesha ka dhaco, khaladaad haddii ka dhaco, dembigi way leeyihiin dadkii khalad ku dhacay. laakiin haddii khaladaad uusan dhicin oo nebi ammaan ay tahay, oo dikrullah ay tahay, oo nabiga lagu salinayo, siirada nabiga laga sheekeynayo, oo maaragtay wax xaaraam aan la sameynaynin, wax fiican weeyaan. fatacdiimu lmawlid waاtikaaduhu mawsiman qad yafcaluhu bacdu nnaas uu yiri. mawliidka in la weynay dhalashadii nabiga caleyhi salaam lagana dhigo sida ciid oo kale, dadka qaar ka mid a way sameeyeen. wayakuunu lahu fiihi ajrun cadiim, qofkii taas sameeyan wuxuu ka helaya ajir aada u weyn. waa ibnu taymiya lixusni qasdihi, maadaama olajeedadiisa niyadiisa ay tahay wax wanaagsan. wa tacdiimihi lirasuuli sala allahu calayhi wasalam, iyo weyneyn uu weyneynayo nebi maxamed caleyhi salaatu wassalaam. taa marka aan kasoo tagno, waxay yidhaahdeen dadka diidan mawlidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam in loo ixtifaalo, waxay yidhahdeen waa arin bidco ah, bidcadana ma banaana in la sameeyo. sababtoo ah nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man axdasa fii amrina hada maa laysa fii minhu fahuwa rad.
amarkeena diinta kii ku soo daro waxaan diinta ka mid ahayn waa wax lagu celiyey, lagama aqbalayo. xadiiskan marka wuxuu ku caddeeyay yidhaahdeen in nebigana ma samaynin, asxaabtiina ma aysan samaynin, khulafaa raashidiintana ma aysan samaynin, gadaal ayaa laga sameeyey. marka waa wax cusub, kii kusoo daray diinta wax cusubna lagama aqbalayo. taa marka waxaa loogu jawaabaa hadduu nebigana oran lahaa man axdatha fii amrina haada fahuwa rad, diinteenan kii wax kusoo daro waa lagu celin, macquulay noqon lahayd. xadiiska muttafaqa bukhaari muslim ay isla soo wariyeen. laakiin nabigana calayhi salaam wuxuu yidhi maa laysa minhu, waxaan diinta ka mid ahayn, waxaan diinta asal ku lahayn ay ka mid ahayn. taa marka waxaa lagu magacaaba luqadda carabiga sifa mu'athira, sifad oo ku cadaynaysa raad inay leedahay. yacni diinteena kii kusoo daro waxaan diinta ka mid ahayn, ka ayaa lagu celinaya. lakin wax hadduu diinta ka mid yahayna laguma celinayo weeyaan. marka in nabigan dhalashadiisa laga sheekeeyo diinta may ka mid tahay, nabigan in la jeclaado, in la ammaano, in lagu saliiso diinta kama mid ah way ka mid tahay. marka saa daraadeed radkii ma noqon karo, sababta maa laysa minhu ayaa meesha ku jirta, waxaan diinta ka mid ahayn. laakiin diinta hadduu ka mid yahay rad ma aha. arrinta labaad ee iyadana xoogaa uga adag ay soo daliishadaan dadka diidan in loo ixtifaalo mawlidka nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah xadiis isagana aad iyo aad u adag. ha noqoto kii soo wariyey jaabir ibn cabdillah laga soo wariyey oo soo wariyey imaam muslim. nabigana calayhi salaam wuxuu yidhi ama bacd faina khayra alxadiidi kitaab allah wa khayra alhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam. yani hadal waxa ugu fiican hadalkii ilahay, kitaabkii ilaahay, hanuun waxa ugu fiican hanuunkii nabi maxamed. wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala. umuurna waxaa ugu shar badan wixii cusub lagu soo daro, waxaan kitaabka iyo sunnadii nabiga ahayn. wixii ka baxsan waa wixii wax cusub, waxa cusubna waa wax bidca ah. wa kula bidcatin dalaala, bidca walbana waa baadinimo. wa kula dalaalatin fi naar, riwaayad dheheysa way jirtaa. iyo xadiiskii cirbaad ibnu saariya isagana soo kale sunan abi daawuud iyo keyrihii soo wariyeen. wa iyaakum muxdathaat alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala. yani iska ilaaliya waxyaabaha cusub, sababta wax walboo cusub waa bidca, bidco walbana waxay ku cadaysay in baadinimo ay tahay. marka kul yani waxaa loo isticmaalay yidhaahdeen tacmiimun shaamil, shay generaal ahaan caam ka wada dhigayo. sababta kulle hadday meesha soo gashay wax walboo cusub ayaa noqon kara inay yihiin wax wada bidco ah. ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu yiri qur-aanku yiri wallahu bikulli shayin caliim, ilahay wax walba wuu og yahay. marka kulligii waxa ku caday tacmiim shaamil inuu leeyahay. wallahu laa yuxibu kulla kafaarin athiim, ilaahay ma jecel qof walboo gaaloobay oo dembiile ah. uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat, nafsad walba waxay kasbatay ayaa laga oofin doonaa. kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt, nafsad walba way geeriyoon doontaa. kullu man calayha faan, wax walba adduunka ku dul noolna way dhammaanayaan. sidaa daraaddeed marka kul hadduu yahay tacmiim shaamil weeyaan oo wax ka baxsan karo ma jirto. sidaa daraaddeed kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala, bidco walbana waa baadinimo. taa haddii aan niraahno sidaas daahirkaas aan u qaadano, asxaabtii laftirkooda haddii ay ku dhaceen marka waxyaabo lagu tilmaami karo muxdath ama bidca oo cusub oo nebigana uusan samaynin, iyagana xukunkooda marka muxuu noqon? ilaan xadiiskana wuu jiraa. dhowr axaadiis ayaa jirta oo ku cadaynaysa asxaabta qaar ka mid ah inay ma aragtay sameeyeen wuxuusan nebiga amrin. xadiiskii nebiga la soo wariyey nin asxaabta ka mid ah waxaa laga soo wariy cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi anagoo nebiga la dukanayno ayaa nin asxaabta ka mid ah wuxuu yidhi allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kasiira wa subxaana allahi bukratan wa asiila. hadalaasu yidhi allahu akbar kabiira walxamdu lillahi kasiira wa subxana allahi bukratan wa asiila. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka yaa hadalkaas ku hadlay? ninka wuxuu yidhi anigaa ku hadlay. yacni wax cusub weeyaan oo isaga dikri ka dhigtay. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cajibtu laha, waan la yaabay hadalkaas, sababta ah futixat laha abwaabu samaa, albaabada samadaa loo furay hadalka aad ku hadashay.
muusan oran bidca ku dhacday bidco walbana dalaalo. Waxaa soo wari imaam Muslim. sidoo kale xadiiskii Abu Saciid al-Khudri saxaabigii ahaa radiyallahu can uu yiri ayagoo wada socdo ayay maaragtay xoogaa gaajoodeen, dad tuulo degan ay ku tageen, dadkii ma aysan soo dhaweynin. kadibna waxaa dhacday ninkii madaxda ahaa inuu qaniinay dib qalooc. ay yiraahdeen war madaxda nagala qaniinay ma idin ku jiraa cid daaweyn karta ama ku tufi karto. Abu Saciid wuxuu yiri nacam, uu yiri anaga ku tufi karna, laakiin shard maxay tahay shardigaaga? xoolan u baahannahay. markaas yaro xoolo waan ku siinayna. Abu Saciid al-Khudri marka wuxuu ku akhriyay 7 jeer suuratul Faatiha. markii nabigu soo xoolihii soo qaatay nabigu soo laabteen ay nabigu u sheegeen. marka يعني inaysan nabiga ka baranin waxa ku ogaanaysa nabiga kaleey salaam wuxuu kiri wama calimta annaha ruqya see ku ogaatay inay daawo tahay Faatiha, see ku ogaatay Faatiha inay daawo tahay. yani Abu Saciid wuxuu la yimid waxaan nabiga sameeynin. marka xadiiskan waxa soo wariyay Tirmidhi iyo Tabarani ibn Majah oo nabiga kaleey salaam markuu xoolaha ladin siiyay aniga wax iga siiyo yiri isagana soo ugu muujiyo waxay sameeyeen wax fiican inuu yahay uma uusan ar bidca ku dhacday. soo kale xadiiska saddexaad oo laga soo wariyay Rifaaca ibn Raafic az-Zurqi wuxuu yiri nabiga ayaan la dukanayna. markuu nabiga alayhi salatu wasallam yiri sami'a Allahu liman hamidana, asxaabta kamid ayaa wuxuu yiri rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. ilaa adaa mahad iskale, mahad celin badan oo barakaysan. markaasuu nabiga alayhi salaam salaada laga baxay weydiiyay yiri yaa sida ku hadlay. ninkii saxaabi wuxuu yiri aniga ku hadlay yaa rasuulallah. nabigu wuxuu barakay rabbana walakal hamd لكن حمدا كثيرا طيب مباركا في صحابك أي كسو كردي. النبي عليه السلام حير وحان أركي دار إي صدن ملائك أو كتر تميس كي أخوري لها كلمة داس. حديثك حصور إمام البخاري قف كي أخوري كلمة دا أخوري مركا حتى إيرا هذا علماء وحي كوانتهي كلمة دان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صدني أفر حرف. النبي قال حير دار إي صدن ملائك يعني waxaa laga yaabaa inay ahayn 34 malaa'ig mid walba xaraf inuu ma aragtay u dhigmay malag walba. marka xadiiska waxa soo wariyay Bukhari wuxuu ku cadeeyay saxaabigan wax dheeraad oo ku soo kordhiyay oo nabigana uusan oran, nabigana ku ogolaaday. daliisha afraad nin asxaabta kamid ahaa ee qolyo madax u ahaa wuxuu caado ka dhigtay salaada markuu dukanayo markuu Faatiha iyo suurad kala akhriyo mar walba wuxuu raacsin jiray qul huwallahu ahad, suurad qul huwallahu ahad. asxaab markuu la yaabeen waxay raacaan qul huwallahu nagu dushi ama suurada kale nagu dishay laakiin maxaa dhacay maya taasda igu ogolaataan waa idinku hadii kalena xir imaamka la raadsada. nabiga arinta markuu sheegay wuxuu yiri hal la weydiiyay maxaa ku kalifay. markii la weydiiyay xiri waxay ka sheegay waa sifadii Ilaahay iyo suuradaas waana jeclahay. nabiga wuxuu yiri markuu sheegay Ilaahay inuu jecel yahay qafkaas muusan oran bidca la timid. soo kale xadiiskii Khubayb ibn Adi saxaabigii ahaa ee markii mushrikiinta rabeen inay dilaan ka codsaday 2 rakac inuu dukado. nabigana wuu qiri taas يعني waxay noqotay qofka shahiidka markuu noqonayo in 2 rakac u dukado. Khubayb ayaana bilaabay. xadiiska soo kale Bilaal ibn Rabah nabigana alayhi salatu wasalam wuxuu yiri Bilaalo waxaan maqlay socodkaaga aan jannada ka dhex maqlay ee maxaad jannada nooga hormartay. markaas Bilaal yiri yaa rasuulullah caado waxaan ka dhigtay markii aan musqul galo inaan weysa qaato, markaan weysa qaatana 2 rakac inaan dukado. waxuu nabigana u sheegayna ma ahayn. markaasuu nabigana ku yiri haddaan ogaaday marka sababta aad nooga hormartay taa daraad wax jannada nooga hormartay. tan todobaad soo kale xadiiskii Mucaad ibn Jabal radiyallahu an saxaabigii ahaa marka isagana wuxuu arkay markii nabigana salaad dushinayo asxaabta qaar ay soo daahan way weydiin jireen rakacadee la marayo tan saddexaad tan labaad mid walba markuu ay ku soo bilaabi jiray. marka ama gadaal ka soo gaara ama marka waxa arkay nabiga salaada dhamay mid uu rukuucsan mid uu sujuudsan mid gaar oo dukanay. Mucaad marka wuxuu yiri aniga yiri waxaan la qabanayaa nabiga sidoo uu yahay markaan soo galo haduu rukuucsan waa la rukuuc haduu sujuudsan waa la sujuudi meeshu joog ayaan uga qaban markuu salaada dhamayaan si dhameystiri intii leega baahnaa. nabiga markii loo sheegay wuxuu yiri Mucaad wuxuu idin sameeyay sunna fiican ee ku dayada Mucaad. yaani nabiga alayhi salatu wasalam wuu dhiirgeliyay. marka saa daraadeed ayaa waxaa timid yani caddayn oo ah tii hore mid ka duban ilaan kulla bidcatin waa la yiri asxaabtii nabiga asagoo nool ayeen waxyaabahan la yimaadeen
haddii ay og yihiin nebiga inuu wax walbo bidco ah oo cusub oon isaga mooyaane yani ama ilahay u waxyoon ama nebiga sameyn aan la samayn karin asxaabta ma samayn lahayn arrintan. haddii ay khaldan tahay diinta asal ay ku lahayn nebiguu ka reebi lahaa. nebigu mar wuxuu arkay nin qoraxda taagan aamusan aan fadhinina taagan. markii la weydiiyey wuxuu yidhaa nebiga u sheegeen asxaabta ninkan ilahi wuxuu ballan ka qaaday inuu soomo, inuusan hadlin, inuu taagnaado, inuusan harsanin oo fadhiisanin. nebiga alayh salam wuxuu yidhi ha fadhiisto yidhi, ha hadlo, ha harsado, soonkiisan ha dhammaystiro. soonka waa wax sunno ah oo diinta ku sharciyan ku bannaan, laakiin waxyaabahan kale o dhan wax cusub weeyaan isaga la yimid aan diintana asal ku lahayn. marka saa daraaddeed nabigeena alayh salam wixii diinta asal ku lahayn wuu ku raacay, waxaan asal ku lahaynna kuma raacin. marka waxaa imaanaysa hadda aayaddii ama naskii ahaa kulla bidcatin dalaala, kullan waxaan niri tacmiimun shaamil weeyaan, wax ma aragtay kulli wixii dhan wada saameynayo. marka culamada waxay yidhaahdeen marna wuu noqdaa tacmiim shaamil, marna wuxuu noqdaa caamun makhsuus, wax caam ah oo laakiin khaas noqon karo, wax u gaar ah. marka imaam shaafici qaar ka mid waxay yidhahdeen ay ghaalibu lbidca, bidcada badankeed ayaa waxay tahay wax lunsan, bidcooyinka o dhan ma wada ah. sababtoo ah ilaahay subxaanahu watacaala meelo badan ayuu qur-aanku sheegay yani noo cadeeyey kulli inaysan wada ahayn wax wada yani shaamil inuu wada ahayn. ilahi wuxuu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay. yani markay iloobeen wixii la xasuusiyey waxaan u furnay shay walba albaabadiis, oo ah ma ahayn albaabadii naxariista looma furin, albaabadii toobada looma furin, kulli shayna waa la yidhi shay walba. marka yani tacmiim yani makhsuus weyaan, caam oo laakiin wax gaar ah. waxaa loo furay albaabadii fasaadka, albaabadii ma aragta xumaa. ilahi wuxuu yidhi uma aataynaa muusa alkitaaba tamaama cala aladii axsana wa tafsiila likuli shay. kadib nabi muuse waxaan siinay kitaabkii oo taam yeelayey tamaamka ahaa iyo cala aladii axsan wa tafsiila likuli shay walbana ku faahfaahsan. shay walba kuma faahfaahsanaa oo wuxuu ku faahfaahsanaa wixii shareecada waxyi wixii ahaa diiniyan, ma ahayn waxyaabaha adduunyada kale ku saabsan. marka tacmiim makhsuus weeyaan. cilmi almantiq marka waxaan ku baranay suurun kulliy iyo suurun juz-i. suur yani wax gidaar oo ma aragtay ku harareeyay oo kulli ah, kuwii hore aan soo qaadan shaamil oo kale, iyo wax juz-i ah qaybka qaar ka mid ah. ilaahay wuxuu yidhi waqaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa atayr wa uutiinaa min kulli shay. yani nabi suleymaan dadkii wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaas, dad yahow waxaa nala baray shimbiraha luqadooda, wax walbana waa nala siiyey. marka wax walba imaam ibnu jariir tabari wuxuu yidhi wax walba ku habboon maamulkii dowladda ayaa wax laga siiyey, ee maaha adduunka o dhan wax walba in la siiyey. ilaahi subxana wa tacaala wuxuu yidhi markuu ka sheekeynaya qowm hud tudamiru kula shayin biamri rabbiha. daweeshii uu soo diray shay walba way baabi'inaysay. ibnu jariir tabari mufasiriintu way sheegeen nebi huud kuma uusan dhimanin, iyo qowmkii muminiinta kuma dhimanin, buurihii kuma aysan dumin, guryihii kuma aysan dumin, laakiin dadkii loo soo diray keliya ay baabi'inaysay. marka tacmiimun makhsuus, caam oo makhsuus ah wayaan, dad gaar ah loogu talagalay. saa daraad marka fa ina kula muxdathatin bidca markii la yiraahdo kula yani waxay noqotay tacmiimun makhsuus ay gaalib almuxdatha bidca wayaan. sidaa daraad marka culimad badan waxaa arkaysaa bidcadii kala qaybiyey. caalimka ugu horey aan soo qaadana waxa weeyaan imaam alculamaa oo ah imaam ashaafici raximahu llah waradia allahu canhu. wuxuu leeyahay albidcatu bidcataan. bidcada waa laba bidco, bidcatun maxmuuda, bidco oo wanaagsan, wa bidcatun madmuuma, iyo bidco xun. famaa waafaqa asunna fahuwa maxmuud. bidcadii waafaqsan sunnada yani raad kula diinta waa bidco fiican. wamaa khaalafa وما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة. لكن وحي عصب للي ماذا أي خلاف سن كتابك أما خلاف سن سنة ذي نبي عليه الصلاة والسلام. توقف ولا لسه؟ أي خلاف سن سنة ذي النبي عليه الصلاة والسلام، أما خلاف سن إجماعي، أما خلاف سن راد، أما خلاف سن كتابك، أما السنة ذي، أما khilaafsan yani athar la soo wariyey,
taa waxay noqotaa bidca lunsan. يعني بدعة سي أنه قطع الباطنة إن خلاف سنة كهر إيمانيس وكتابك السنة. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو محمود. وحي خير العسبوني سيلة ليمد أو أنت أصلا خلاف سنين وبدعة أمانا أو فيعا. إمام الخطابي يقول فإن هذا يعني حديث كامل شرحه كل بدعة ضلالة خاص في بعض الأمور وحقار إيهي أمور تخار كما كتاب اسمه عالم السنن مجلد كأفراد. وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره فهو ضال. شيء والبو أو لا عسبونيسي عساب لليمد الدين تنا أصل بكلهين أنا لو قياس قارن كرين ووحل سن. وأما ما كان منها مبنيا على قواعد الأصول ومردودا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة. يعني وحي لكن قواعد كان دين دور كله أنا ما عرفت لو سعلين كرو بدعة يعني أو سن معها. إمام أبو شام المقدسي وشيخي إمام النووي وحليه فالبدعة الحسنة متفق على جواز فعلها. بدعة وناكسن وحالسكو وافقي إني بنانتها إن لسماء وحالسكو وافقي علماء وحالسكو وافقدين بدعة وناكسن إني بنانتها إن لسماء وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة وحو تاسن وحوين وحو بدعة أو وافقسن شريعة قاعدة أودك سنين غير مخالف لشيء منها شريعة وحو خلاف سنين. هذا ومرك مولد النبي عليه السلام إن لقى الشيء إلى شديسة أما لا احتفاله شريعة ما خلاف سنتها بس وافق سنتها ووافق سنتها النبي أصدقوا نال أي الله أماني. كان يسنجر حسان بن ثابت الكويري خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وحلو أبور أدوان عيب أدوان عيب لا وحاب ليس إن لقوا أبور ساعدك الجعلات. فأجمل منك لم ترى قط عيني خفكا قرح بدن ولي إنه كما أرق وأفضل منك لم تلد النساء ونكا فضل بدن دمرك مدلي دونان. مركزات رادت يعني وحوليه هي بدعاس يعني وبدعة شريعتها دي بخلاف سنين يعني وبدعة بنان. إمام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام استغنى بدعة الشن أيو أخيبي والشن قواعد الدين تسوقش بدعة واجبة بدعة سنة بدعة حرامة بدعة كراهية أي بدعة بنان. بدعة واجب كأ سيدا ما أركتي علومتا لو باهيها إن دينتي لو إفلالية قرآنكي إن هالكتاب لو جمعي أبو بكر وسميه عمرنا وما أركتي لرأيك سليمد يو علمي كان أصول الفقه علمي حديثة وحديثة لو حفظيه علومتا صدن وواجب بدعة مجرين واجب النبي عليه السلام ضعيف يو قوي يو صحيح يعني وحله مجري جري حتى علم التجويد كان مجري جرين مد متصل مد منفصل إياه وحلمدها مجري جرين وحصلنا مركا وحسوا قلنا من باب البدع مركا وحي الواجب كل وحو كله وحلبا نيجا شرع علمي كان إلا حفظ مواجب ها ودوين كله حفظين كرا بدعة ها هاتي وبدعة واجبة شيء كان مصنبة ها يعني وضدي مركا لو حفظين كرا سيدا مثلا دتك إن أي برتان شريعة الإسلامك إن جامعة الله لسه وبدعة لكن سنة مستحبة واجي النبي مجري جن الجامعة إسكولات مجري جري مرك إسكولات كان لسه وحي لمدها علوم الدين يقولوا برناية وبدعة ولكن مستحبة وحبنان أو ما عرفتي وح مستحبة ويان بدعة وحاجته محرمة ويري يعني وح ما عرفتي محرم مثلا إلهي سبحانه وتعالى خلق يسنا وأكيسيسد صفات إلهي ابن آدم كنا أسكو أكيسيسد وبدعة أو محرمة إلهي سمين النبي عليه الصلاة والسلام مؤسن نو شيء إلهي إنه أجنه إله كتب تكلم إنه يجي مادن أرمها سكلا إيوه حاجرة بدعة كراهية سيدو حير مساجد إن القرحية إيوه حلمتها إيوه بدعة جائزة خفك إنه أمرك توسع كسماء راشينكي أرنتا أمرك وحاسوا كالكوا وافقي أئمة بدن سيد إمام القرافي إمام النووي يعني حولي هذا عام مخصوص يعني حديث كان مركو شرحه وكل محدث بدعة عام أو لكن قار الله تعالى قال والمراد وحنا لجي غالب البدع بدعة بدن كذا قال العلماء وحير علماء وحير هذين البدعة 5 أقسام البدعة شن أي أخيب سنتا مركزات رادت وحاركيسا إمام نووي إنه ما أركتي قبي تي شنتا هيد إمام القرطبي رحمه الله كتاب كيس المفهم
شرح مسلم، شرح صحيح مسلم، وحول لي حقيقة البدعة ما أبدأ وافتتح عن غير أصل شرعي. يعني بدعة حقيقة ده وحويان وح للي يمد أو لبي لابي أيون دين الشرع أصل كل هام، لدين تو أصل كل هان أهان. هدي لك دين أصل كل هذا هاي بدعة دي حرام تأدمن خنيسة. ابن حجر العسقلاني سجن حكله ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. يعني بدعة مركو شرح حديث كان كل محدثة بدعة، يعني عكله وحي لعسبونيسي وشرع وضبع عن كل هين شرع ما يلقى نصون كسر قلينين تا يا لقوا مقعوا بدعة. مفاجأة ذا كلام مركدنا مر بعد أن قصة الله وانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تيها روحان شاقني إنه أماني ويري أجر أي كهلا يدك موليد كالنبي سمينا هديك تهي محبة النبي تان لواد ما أنت مفاجأة كنت هيدتك كأبتر صدى شيخ الإسلام ابن تيمية السجن حوليه وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة. بدعة والبو أيسان أهان وح واجبة أما أيسان أهان بدعة سنة تا أيا وحاها بدعة سيئة بدعة حن وهي ضلالة باتفاق المسلمين. تاسمع تيو بعض يقولوا معي الضلالة أهد مسلمين سيسكوافقين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة خفكي بدعوين كخار كمد إيراده وبدعة حسنة أهنا فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي وحي حسنة بدعة سنهون كرتان مركلوها لدليل شرعي شيء قاس وجرى لك وددي لامر لها أي بدعة عصبة تامركها بدعة حسنة أو وافقصا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة دليل شرعي الله يستوحى أنه السنية مركز شيء واجب وددي سدي لامر سنة مركز ابن تيمية وحكوا عدي فدودان وحين كنت على تاويجي مجلد كسدحات بيج كسدح بقول لحظة إلا يعني عقله كل بدعة ليست واجبة ولا مستحب بدعة والبؤسن واجبنا أهين مستحبنا أهين يعني مركع وحكوا عدي إنا جرت بدعة واجبة إنا جرت بدعة مستحبة لكن ضدك خارقات هذا يسوق أبتر أورنا كل بدعة ضلال بدعة والبدن ضلالة وين ما بدعة واجبة جرتوا يري بدعة سنة تاس مركمون خكوري بدعة سيئة وبدعة ما أركت مستحبة بنان. وحكو سيدر أرضيجيس ابن رجب الحنبلي إسجن كتاب كيس جامع العلوم والحكم وكشرح هاي 40 كنووي وحوله والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. بدعة وحالة لجيدة بدعة محرم كأه وحي لعسبونيسيو أو شريعتنا أن أصل كل هين يعني شريعتها دي أصل كل هذا هاي وبدعة بنان. أما ما كان له أصل من الشرع لكن وحي شريعة أصل كله يدل عليه وكتسا كاسيغاس إن شريعة قبتي شريعة وشيغاس إلا سمي لكن وددي سام هبكي ما أركتي وي لو مري فليس ببدعة شرعا تا شرعها بدعة ما بقى يري وإن كان بدعة لغة هدي حتى بدعة لغة أهان كويه شيء هو شيء عصب بدعة ولغة أهان لك شرع أهان بدعة ما هو يري. سوكر إمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي حوليه فليس كل ما ابتدع منهيا عنه وحول بو بدعاء ما هو حنا قال الراوي بل المنهي عنه بدعة تضاد السنة ثابتة وحنا قال الراوي بدعاء كهر إيمانيس السنة سوغان وترفع أمرا من الشرع أمر شرع هذا كمد أهنا مارك سراء قاديس مارك وحاركيسا إلا طبعا علماء إن أدين سوق قادي ما أركتك هذا الشيء بدعاء إني أكل خيف سنتو خارنا كنت تنوامين الله بدعاء جائزة بدعة يعني حسنة بدعة سيئة سيد إمام الشافعي وحي لمد أهل بدعة وناكسن بدعة حن بدعة وناكسن وحي الشرع هذا أصل كله ودوين لو سمي لو مرة وحفنان ساد راد وحار كيسا أنا مركي شعبان كلا جار فضيلة شعبان علماء ذويك هذا منابرته ويكخد بيان وحال جاري بش رجب وحال هذا الإسراء والمعراج وحال سو جاري بش رمضان كي فضل جيس أيا لقى شكايا مركم حانو ديد مركي لسو جاري بش ربيع الأول inaan ka sheekayno siiradii nabigeena iyo fadligiisa iyo wanaagiisa iyo salligiisa inaan badsano marka saad raadad marka waxaa noo cadaatay culimadii waaweyneed ee caanka ahaa inay qabeen inay banaan tahay in ixtifaal loo sameeyo mawlidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa inoo cadaatay culimadii waaweyneed oo ma aragtay asalka salafiyada ahayd inaysan ka soo horjeedin ixtifaalka mawlidka
waxaan idin sheegay xaafid addahabi oo ardada ibnu taymiya ahaa. waxaan idin sheegay ibn rajab alxambali. waxaan idin sheegay ibnu kathiir, iyo waxaan idin sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya. marka dadka ku abtirsanaya ibnu taymiya xaggee ka keeneen? sidaa daraaddeed marka xataa ibnu taymiya iyo ardadiisa ma qabine gadaal dadkii ka yimid way jiraan. culamadii hore qaar yaroo faraha lagu tiriyo iska shaad ah, laakiin si loo badnaa waxay in la wada qabay mawliidka inuu banaan yahay loona xafladayn jiray. laakiin waa arrintaas waxaa xooga saaray dadka gadaal ka yimid oo ugu horeeya sheekhooda adigana ku abtirsadaan sheekh maxamed ibn cabdilwahaab 200 sano oo kale inta laga soo wareegay. marka ibn cabdilwahaab ama qolyihiis gruubkiisa lagu magacaabo wahaabiya, wahaabiyada ayaa qabta mawliidka inuu bidco yahay, laakiin salafiyada oo ibnu taymiya laftirkiisa ma qabo. saan idin soo sheegnay ardadiisa. marka qaybta keliya wahaabiyada oo iyagana laga yaabo 5% inay yihiin muslimiinta markii loo barbar dhigo ayaa qabta inay bidco tahay. sidoo kale bidcadan inay laba u kala baxdo maxmuud iyo xasan iyo sayi'ana waxaa qaba ardadii ibnu taymiya laftirkiisa iyo xaafid ibnu rajab alxambali saan idin soo sheegay. haddaba marka waxaa noo caddaatay adilada banaynayso mawliidka nebiga in la sameeyo inay ka adag tahay. kuwaan maaragtay oranayo mawliidka nebiga ma banaana, taasna ay jahl ay tahay. calaa kulli xaal marka arrinta markay heerkaas gaartana waxa ugu weyn aan oran karno waa wax laisku khilaafsan yahay. qaacidada muslimiinta u degsan waxa weeyaan laa inkaara fi lijtihaad. waxa ijtihaad hadduu yimaado munkar waay lama oran karo. qofkii murtaax ku ah mawliidka inaysan banaaneen yacni xoraa tahay. anaga ma oran waa sunno in la sameeyo, mana oran waa waajib, laakiin waxaan oran caado banaan weeyaan. sideedaba yani waxaan ognahay qawaacidda inay tahay cibaadaadka wixii ku saabsan atawaquf, in daliil loo helo cibaadada. wixii ku saabsan axkaamtana atacliil, ciladii in la ogaado. wixii ku saabsan caadaadka dhaqanka wixii laga dhigtana inay tahay aljawaaz, inay banaan tahay. tan marka ma waxay soo galaysaa cibaadaadka may soo galaysaa mise axkaamta soo galaysaa mise caadaadka? caadaadka ciid yani caado weeyaan. caado waxaa laga dhigtay in laisku yimaado oo ma aragtay maalinkaas laga sheekay dhalashadii nabiga. sida ayba xataa qolyaha wahaabiyiinta caado ay ka dhigteen sacuudiya aan ognahay si loo joogo inay sameeyaan isbuuc lagu magacaabo isbuucii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab, isbuuc ibn cabdilwahaab. isbuuc dhan loo xafladay. taaba daliil looma hayo, aayadna looma hayo, xadiisna looma hayo. ibn cabdilwahaab in loo xafladeeyay nabi maxamed oo ka khayr badanna la diida ixtifaalkiisa miisaan sax ma aha. marka sidaa daraaddeed qolyaha diidanna hana ixtiraamaan qolyahana qabto adiladeenaan u haysanaa ee noo banaynayso in loo ixtifaalo. sidaa daraaddeed marka ummadda soomaaliyeed waan u tahniyadaynayaa mawlidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam in loo ixtifaalana waxaan rajaynayaa ajir inay ka helaan oo qofkii farxaddaas kaliya ka qayb galana oo waa ogtihiin hal maalin uu ku farxay abulahab inuu ilaahay naartaas halka maalin isniin uga badbaadiyey. qof muslim oo ku farxay dhalashadii khayru khalqillah calayhi salaatu wasalaam oo salligiisa badsaday waxaa loo rajeynaa inuu badbaado. dowladdeena marka waxaan leeyahay Soomaaliya iyo yacni wixii ag yimaado Somaliland, Jubbaland, Jabuuti, wixii intii af Soomaaliba taqaano, madaxdeena waxaan ugula talin lahaa maalintaas mawlidka haddii ay weyneyn karaan, ay dadka fasixi karaan, si muslimiinta dhan u wada farxaan oo firaaqa loo helo, loo ixtifaalo, iyagana waxay u noqon lahayd ajir. imaam abulfaraj ibn aljawziy wuxuu oran jiray inahu amaanun fi dalika alcaam wa bushraa caajila binayli albugyati walmaraam. xafladda mawlidka la sameeyo waxay ammaan u tahay sanadkaasna ilahay ammaan u ku siinaa fadligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, iyo bishaaray tahay si muraadkii lahaa loo gaaro. oo nabigeena calayhi salaam markii saxaabigii yiri salligaagan badsan wuxuu yiri hadda salligayga majliskaaga ka dhigatid dunuubtaadan waa la cafin, murugtan ilaahay wuu kaa saari. marka dhibaatooyinkan aan ku jirno soo ilaahay noogu saaro maalintaas aan badino salliga nabiga, ducana aan raacsiino. imaam abu sulaymaan ad-daaraani wuxuu yiri haddii rabto ilaahay inuu ducada kaa aqbalo salliga nabiga horta ka bilow, kadibna ilaahay bari, kadibna salliga ku khatim. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma lumiyo salligii nabiga, dhulka ma tuuro. ilaahayna wuu ka sareeyaa wax u dhaxeeya salligii labada sali nabiga inuu dhulka ugu tago, inuu tuuro. labada sali nabiga waxay xambaarsan yihiin, waa la xambaari, ducada waa la xambaari. marka ummadii in loo duceeyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala amaan iyo istiqraar iyo ma aragti deganaashi iyo xasilooni iyo khayr iyo barwaaqo inuu wadankeena noogu dhigo oo qulubtii muslimiintan isku soo duubo. marka dowladda waxaan kula talin lahaa hadday awoodo maalintaas inay dadka fasaxdo, fasaxaas dadka ha wada siiso, ha la xafladeeyo. aan aragno waan jeclaan lahaa macal madaxweynaheena barakaysan ilaahay khayr ha siiyo maxamed
farmaajo iyo khayre iyo dadkii la shaqeeyo dhan iyagoo masaajidadii ka qayb galay iyagoo tagay ee mawlidkii nabigan calayhi salaatu wasalaam ka qayb galay inay noo soo gudbiyaan aan daawan aan ku faraxna anagayna muslimiinta inay farxad u noqoto anagana niyadda noogu dhisanto aad ayaan u jeclaan lahayn taa haddaysan awoodin inay fasaxaas sameeyaan cala al aqal hal mar xataa miidiyaha ama baraha bulshada ha soo istaagaan ummadda ha u tahniyadeeyaan mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamka muslimiinta soomaalida u tahniyadee dhalashadii nabiga calayhi salaam ee farxadda loo farxsan yahay sida madaxdeedii horeba ay samayn jireen nuurudiin zanki iyo malik almudafar iyo oo xataa ay yiraahdeen markii ka sheekanaya sir aclaam xaafid dahabi iyo ibn kathiirbo يعني maadaama nuurudiin zankina uu samayn jiray mawlidkii nabiga dagaal walba ku guuleysan jiray lagama adkaan jirin marka haddii aadan awoodin dadka u tahniyaday taa haddii aadan awoodin muslimiinta inaad u tahniyadaysid kuwa sameynaya ixtifaalka mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaal ammaankooda in la ilaaliyo inaan lagu xadgudbin waan la soconnaa wixii ka dhacay siinaa masar qolyihii masaajid isugu yimid oo suufiyiinta ah maalinta jimcada ahayd in lagu soo weeraray masaajidkooda ilaa 300 qofood in gaaraysan laga dilay in intaa la egna la dhaawacay sababtana waxaa la yiri dadkan salaada kadib waxay sameyn lahayn mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam marxaladda ayaa la marayaa marka haddii dadka aad fasaxi weyday adigiina aad ka qayb gali weyday adigiina aad tahniyadeyn weyday waxaad ku dadaashaa kaliya dadka ixtifaalka mawlidka sameynayo inay ammaan helaan bandhigyada dadka awoodda maanta u leenahay soo bandhigaan waa jeclaan lahay inay noo soo duubaan meel walba Soomaaliya xafladaas ka dhacayso aan anagana daawano aan ku faraxno ajirna aan ka helno adinkana ajir ayaad ka helaysaan marka muslimiinta Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay mawlid barakaysan ilaahay ha noogu dhigo sanadka dambana ilaahay amaan iyo khayr ha noogu gaarsiiyo jazakumullahu khayran wa barakallahu fiikum wa salaamun min allahi alaykum wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh